السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب فاميلي سو دواada meel alla meesha aad ku joogtiin waa idin salaamaya again waa walaashii Xamiida oo idin leh welcome to Somali Mom walaalayaal macaan waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo hal idin kugu mahad celiyo kulligiin intii daawanayso intii subscribe ii dhahday intii xataa subscribe in like waqtigooda muhiimka ah galiyay inay videoyaasheeda fiirsadaan aad idinkaga mahad celinaya from the bottom of my heart. You guys are so amazing. Commentigiina waxa waa comment wanaagsan oo ixtiraam leh oo walaaltinimo leh oo wanaag leh ay wallahi waa jeclaa suuxi marka soo kaco on dukada waxaan jeclaa inaan fiiriyo commentigiina aan akhriyo commentigiina wallahi waqtigan firaaqo helo inaan commentigiina akhriyo commentigiina ka soo jawaabaan jeclaa because waxa waa dad aad qiimo u lahaatihiin oo ixtiraam u lahaatihiin oo wanaag u lahaatihiin channelkan waa channel hooyo channelkan waa channel family hooyo ilmo iyo waxa waaye iyo nolol adduun waaye ya maanta videoga idin hayo waa videogi ay iga sugeyseen oo ahay dietka abayaasha snapchat-ka igu jira I'm sure waa igu daasheen xamdiyay dietka aw sida la isoo dhahay finally it is here videogan waa video just hadal videoga dietka wuu ku xigaa cuntada waxa aan cunay sida aan cunay waxas dhan way ku jiraan videogan waa just video aan ka sharxayo sidii aan ku bilaabay dietka iyo waxa igu dhaliyay inaan bilaabo diet anigoo weyn oo ma sha Allah oo iska dhaq maxaa igu dhaliyay all of the sudden inaan diet galo oo lose gareeyo all that weight maxaa igu dhaliyay also waxaan la share gareynayaa sawiradeeda aan maxaa dhahay sidii aan ahay waagii intaan lose gareynin weight-ka iyo markaan lose gareeyay kadib sawirada ahaa in la share gareynaa insha Allah saa u aragtaan wax shayma iyo wax xumaata iyo wax dhibaato aan ma u arko because as long as I'm helping somebody out there a buyer out there hadii fiirsato sawirkayga ama videoga ay fiirsato ee dhaad Xamiida saasi ahaa jirtay sidaanayna iska dhigtay anigana inaan saa iska dhigo waayo if Xamiida did why not me haday dhahdo xataa Xamiida way sameysay saana way iska dhigtay anigana waa iska dhigi karaa oo qofkii maxaa la ku dhaqaaqo caafimaadkiisa inuu daryeelo ku dhaqaaqo inuu diet galo ku dhaqaaqo inuu gymka aado ku dhaqaaqo inuu exercise sameeyo oo maxaa la caafimaadkiisa ka fikiro oo asiga is daryeelo oo Ilaahay with the help of Allah subhanahu wa ta'ala uu ka rido weight-ki dhibka badnaay oo noqoto qof jabiiba oo ma sha Allah dan ani ajra igu socdo that's all I need you know ajirkaasa ba alxamdulillah inta sa ajir iyo wanaag igu filan marka sawirada aan la share gareynaya I hope ina idin noqoto dhiirigelin I hope ina idin noqoto inspiration because ani markaad wallahi hadii 5 pound extra igu dhacdo I go back to my Facebook of course Facebook hadaa gashay sawirada ma ka arkaysid because waa logan ka dhigays ani bisa arki karo laakiin markaan rabo ina is dhiirigeliyo on dhaho wow maanta 5 pound kugu darsantay then I go back Facebook and I look back those pictures and I say والله هذا إسقابن الماشي ونقني ساحمدي and then إسلام مركو وصلنا قناة diet كي عم بلعبها 1-2 weeks دام وضنا الحمد لله ماشي أهرب almost جوجا محربة مركو هذا أنا أسكره هذا وحنا هاي 160 pound وحنا هاي 73 kilos محربة أنا أسكره 10 more pounds أنا my weight goal وحوالي 150 pound هدان قارو I hit my goal and I did that twice lava jet and 150 قاري 150 I didn't share I love 2 times of my life I already got it I know how to get there I know the steps loo qaatay inaan gaaro hada because waxa way waa u dhawaaday waxa way waa u dhawahay weight goalkii 10 pound bis iiga hartay marka maxaa la sameeynayaa ma taqaana waxaan sameeynayaa waa cheat gareynayaa maanta dhan sokora cuna ilmaha dan banaanka waxa ugu soo gado waa cuna moolka hoosteena waaye wax macaan arkaysa who that looks good so waxaan rabaa inaan idin sheego maxaa igu dhaliyay inaan weight lose ka sameeyo aniga oo 267 pound I think I was either 257 or 267 I'm not sure laakiin maxaa igu dhaliyay aniga oo 257 pound inaan iska rido 108 pound maxaa igu kalifay maxaa igu qasbay because okay أنا heard that idin sheego a little bit of information about myself as far as I remember waxaan ahay qof chubby ah waligeyba chubby ahay waligey hatta high school markaan dhigan jiray anoo yariis oo gabar marka intaanan guursanin all the time ani waligey waxaan ahay chubby baan ahay ya عمكو كوسن شبيه هاي ما بحسوستم أنا عاتني سو مرت ما بحسوستم هاي أنا قلت إلما هذا شيء واكسيدر
واسين ناحل ما شاء الله محلها وابرني مركا أنا عيلان حتى وحاسك أها قف نورمال ما يستنتجايا أما الدكامة كلام تجايا